bismillahir rahmanir rahim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa janalka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu warbixin dhameystiran ka dalbaday hay'adda NISA warbixintaasi oo ku aadan Sheekh Mukhtaar Roobo hay'adda NISA gaaraan ku simaha hay'addaasi Yaasiin Faray waxa uu soo saaray warbixin ku qotonta xaaladda Roobo warbixintaasi iyo qaabka uu soo saaray iyo waxa ku jira nuxurkeeda ayaa daawadayaal warbixintan idinku soo koobi doona ehelada Sheekh Mukhtaar waxa ay ka hor yimaadeen warbixinta ka soo baxday NISA sidoo kale hooygii uu deganaa Sheekh Mukhtaar Roobo ayaa laga baxay mid cusub ayaa la geeyay xaaladiisa ayaa laga deerinaya wararkii ugu dambeeyay ayaa daawadayaal halkan idinku soo gudbi doona hayeeshee intaan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka ofran ee gambalaalkaas durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa warbixin yaab leh ka soo saartay xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur kusimaha taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray ayaa si degdeg ah uga soo jawaabay warbixintii uu ka codsaday wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ee ku saabsaneed xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur Yaasiin Maxamuud Yaasiin Faray ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee Mukhtaar Roobo ay tahay mid fiican wuxuuna tilmaamay in uu degan yahay guri ay si weyn u ilaaliyaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray oo ah kusimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa sheegay in hay'adda NISA ay bil kasta uga baxdo nolosha Mukhtaar Roobo lacag gaarayso ilaa iyo $7,000 Mukhtaar Roobo noloshiisa waxaa bil walba NISA uga baxdo $7,000 si loo maareeyo noloshiisa iyo midka qoyskiisa maadaama uu xubin ka noqday al-shabaab isla markaana uusan buuxin shuruudaha soo dhiibaha loo dejiyay in uu waajib ka saaran yahay amnigiisa ayuu Yaasiin Faray ku yiri qoraalka wuxuu kaloo sheegay in qoyskiisa ay si joogto ah uga soo booqdaan isla markaana uu leeyahay dhakhtar si joogto ah ula socda xaaladiisa caafimaad ugu dambeyntii taliyaha ayaa sheegay in sababta uu Roobo u xiran yahay in ay tahay maadaama uu ka mid ah xubnaha al-shabaab isla markaana uusan buuxin shuruudaha looga baahnaa dadka ka soo baxaya kooxdaasi ay isku soo dhiibaya dowladda federaalka Soomaaliya warbixintan ka soo baxday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaana sidaasi u qorneyd waxaana markaasi lagu sheegay in Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur uu yahay arday markaasi dhigta heerka labaad ee jaamacadda waxa uuna diyaariyaa master degree sida lagu yiri warbixintan ka soo baxday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in ay soo booqdaan markaasi qoyskiisa iyo sidoo kaleba eheladiisa hayeeshee ehelada Roobo ayaa soo saaray war lidi ku ah qoraalka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA qoraalka hay'adda ayay ku xusneed in xaaladda Mukhtaar Roobo ay wanaagsan tahay ayna booqdaan qoyskiisa isla markaana uu xabsiga ku dhex dhiganayo tacliin jaamacadeed warqadda NISA ayaa u badnaa been la soo dhoodhoobay waxaase ku gacan seeray qoyskiisa oo aad uga deeriyay waayaha adag ee uu xabsiga ku qaadanayo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ehelada ayaa sheegay in muddo 3 sano ah aysan arkin Mukhtaar Roobo ayna liidato xaaladiisa caafimaad maadaama uu dhowr mar ka soomay cunnada loona geystay jirdil xoogan ehelada warbaahinta la hadlay waxaa ka mid ah Ibraahim Roobo Cali oo ay walaalo yihiin Mukhtaar Roobo wuxuuna carabka ku adkeeyay in ay walwal badan ka qabaan nolosha Roobo isagoo dalbaday in xukuumadda ay baaritaan ku sameyso badqabkiisa iyo goobta uu ku xiran yahay oo aan iminka war sugan laga helin warqadda ka soo baxday hay'adda NISA ama markaasi ay soo saartay oo u badneed been abuur ayaa ku timid amar ay soo gudbisay wasaaradda amniga oo NISA looga dalbaday in ay ka warbixiso xaaladda Roobo waxaana shaki la gelinayaa sida ay wasaaraddu ugu qanci lahayd qoraalkaasi oo durba markaasi ay cabasho ka muujinayaan ehelada Mukhtaar Roobo wasiirka amniga ayaa xilligan kala guurka ah u eg
mid isku dayaya in uu markaasi dib u saxo qaladaadkii ay galeen farmaajo iyo Fahad waana nin garab weyn ka helaya ra'iisul wasaaraha dalka oo ah ninka mas'uulka ka ah arrimaha doorashada iyo sidoo kaleba amniga. haddaynu eegno xaaladda Mukhtaar Robow ayaana weli ku guda jirnaa waxaa la soo warinayaa kadib warbixintan ay soo saartay NISA in Mukhtaar Robow laga bixiyay ama laga kaxeeyay hoygii uu ku xirnaa isla markaasina la geeyay mid cusub. xubno ka tirsan qoyska Robow ayaa waxa kama jiraan markaasi ku tilmaamay hadalka NISA waxayna xuseen in Mukhtaar loo diiday taleefanka gacanta iyo dadkiisu in ay la kulmaan. xogo sirdoon oo soo baxaya ayaa sheegaya in hoggaanka hay'adda NISA ee xalay hoygii uu xabsi guriga ku ahaa kala baxeen Mukhtaar Robow kaas oo 112 maalmood u xiran dowladda federaalka Soomaaliya isaga oo aan la geen wax maxkamad ah oo afduuban farmaajo iyo sidoo kaleba Fahad Yaasiin sida ay xoguhu muujinayaan lama garanayo halka la geeyay iyo sababta looga saaray hoygii uu muddada lagu hayay oo ku dhex yaala xarunta nabad sugidda ee Habar Khadiijo halkaas oo sidoo kale lagu hayo Xasan Daahir Aweys oo ahaa hogaamiyihii ururka Xisbul Islaam. talaabada NISA ayaa ku soo aadaysa wax yar kadib markii wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu eedeysanay Yaasiin Faray oo ku magacaaban kusimaha agaasimaha NISA ku wargeliyay in uu soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo la xiriirta xariga Robow wax yar kadib markii uu banaanka u soo baxay amarka wasiirka amniga waxa iyana la baahiyay jawaabta taliska nabad sugidda taas oo lagu sheegay in xaaladda caafimaad ee Mukhtaar Robow ay wanaagsan tahay isla markaana uu yahay arday dhigtay jaamacadda heerka labaad ee master degree. NISA ayaa intaa ku dartay in Robow ay bil walba ku bixiso $7,000 isla markaana ay booqasho ugu imaanayaan qoyskiisa 3 sano ee la soo dhaafay oo ay markaasi xabsi guri ku ahaa magaalada caasimadda Muqdisho. ha yeeshee xubno ka tirsan qoyska Robow ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka NISA waxayna xuseen oo ay tilmaameen in markaasi Mukhtaar Robow loo diiday taleefanka gacanta iyo dadkiisu in ay la kulmaan qof mobile markaasi computer iyo internet haysta ayaa online jaamacad ka dhigan kara saddexdaasna ma haysto Sheekh Mukhtaar ayuu yiri qof kamid ah qoyskiisa. waraaqda ka soo baxday NISA waxaa lagu sheegay in Robow uusan buuxin shuruudihii lagama maarmaanka ahaa ha yeeshee waxaa la xasuustaa in uu si aan gambad lahayn u sheegay in uu si buuxda uga soo horjeedo fikirka Al-Shabaab taasina ay sabab u noqotay in ay dhowr jeer ku weeraraan deegaanka Abal oo 18 kiiloomitir u jira Xudur halkaas oo uu iyaga kaga gambanayay wixii ka dambeeyay 2013 bartamihii bishii 8 2017 Mukhtaar Robow oo warbaahinta kula hadlay hotel ku yaala Muqdisho wuxuu cadeeyay in xubinimada Al-Shabaab uu ka baxay 5 sano iyo 7 bilood xilligaas. wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa wareysi hore u bixiyay ku sheegay in Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur uu xiran yahay eedeysan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. ha yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waqtigan waxa ka dhex jira dhexdeeda khilaaf xoogan kaasi oo u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. xubnaha ka agdhow ra'iisul wasaaraha oo isla markaana sharciyad buuxda haysta ayaa waxa ay isku dayayaan in ay markaasi saxaan qaladaadkii ay galeen Fahad iyo Farmaajo 4 sano ee xafiiska joogeen iyo muddadii halka sano ay sida sharci darada ugu jireen Villa Soomaaliya. wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo si aad ah u mucaaradsan madaxweynaha madaxweynaha u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa doonaya in uu banaanka keeno isla markaana soo fasaxo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur kaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya ee Baydhabo ka soo xirtay 2018 mar oo la barbartami lahaa ama doorashada la geli lahaa madaxweynaha waqtigan Koonfur Galbeed haya xukunka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee muddaxileedkeedu dhamaaday ayaa 4 sano iyo muddadii halka sano ee sharci darada dalka ku joogtay waxa ay isku dayday ficilo guracan oo aan la mahdin iyadoo markaasi shakhsiyaad u dhiibtay dowladda shisheeye sidoo kalena ay weerar toos ah ku qaaday markaasi xubno ka tirsan mucaaradka Soomaaliya hooy ay ku leeyihiin magaalada caasimadda Muqdisho. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa laga xusi karaa oo markaasi 17 December 2017 weerar lagu qaaday
kaasi oo ay ku dhinteen ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isla markaana uu Cabdiraxmaan dhaawac ka soo gaaray. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media ee aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay warbixinta muuqaalka like inoo saar, subscribe inoo saar channelka furaga maralkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid la cayna inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.